dhinaca kale halow halow السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسولي وحرب اللي بسأل لنا كويديو. تنكوات. مدكوات وحرب الشيقو دلنيردان أو يرير أو توبرك الله قاضي أو هذا إثيوبيا لقيي أو قال استحدث لقيي دقال كاس كخيب قلي أرنتاس دينت محيكا قبتها مد لبادنا مدحدي أو أن دسكي لهد لينين والدين تبرورنا dadka muslimiinta ahaayeen ilmahoodii la qaaday arintaasna diinta maxay ka qabtaa sheekh Sudhu akhi masalada hore waxa ilmaha la qaaday waa arintaas cadeymay u baahan tahay bayaanay u baahan tahay saan sheegay haddaan ka hadlayni shahaado zuurnimada waxa kamid ah war kasta loo iska sheegay la iska qaato oo waxay u baahan tahay qofka inuu cadeyn u helo cadeyntana waxa la yiraahdaa albayinatu ala almudda'i wal yamin ala man ankar cadeynta marka hadda dawladda xageeda saaran tahay dawladda laga rabo inay cadeyso la hadashiiso caruurtii la wadan kale jiraan military waa wax la qorto dib ma laha laakiin inay cala aqal walwalkaas ay waalidiinta ka qaato waa mas'uuliyad saaran way haday ka cabsan mas'uuliyad ka baqan warkaan dhamay akhiisu ay ka baqaan wararka banaanka laga sheegay haday ka aamusaan dadka shakiya galay marka waxa wanaagsan nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu noo sheegay innaha safiya markuu jidka la socday xaaskiisa habeenkii uu i'tikaafka ku jiray laba nin arkeen ay carreen nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu ku yiri ala risquma innaha safiya maxaa wuxuu ka baqay nabiga kaleey salaatu salaam nabiga kaleey salaam naag mugdiga la marayso hadhow dadka ku sheekaysan xalan talo naagtii qofku la dumarku la taagna laakiin nabiga wuxuu yiri xaaskay waa ogaad asaa u wacay waa ka carreen oo u yeeray macnaha waxa leenahay diintu way qabtaa hadduu shaki yimaado qofku muuminiin shaki in laga qaado shakigan waa iska sahlan yahay ayadoo la siin karin ayadoo la dhihin waxaan dada ka dambeeyay dada ka yeelin in cadeen la raadiyo ay dawladda bari yeesho ay tiraaho dawladda la hadasho ay tiraaho nin kasta waalidkaaga waalidiinta la shirto ay tiraaho wiilkaaga waa kana telefonkiisa la hadal waa lagu soo hadalsiinaa dawladda ilaan dadka aakhir ma jiraan adduunyo jooga meesha reemaha ka joogaan hadday aakhir jiraan ay dhacdaan inay sheegaan markaas wixii diiyay ay wixii makadhaw wixii waalidka ilaan wax bani aadam nafo wax laga hadlayo marka taas waa ka dadka kalena waxaan leeyahay waalidiinta waxaan leeyahay ilaahay tala saarta toobada ilaahay badiya nabiga calayhi salaatu salaam ninkii markii caruurta islaantii odaygii ka maqnaa caruurta markay u yimaadeen oo yidhaahay rasuulka allah wiilkeena shahiidna ma aha mana soo naqanin wuxuu yidhi kelimad laa xawla walaa quwwata illaa badiya ilaahay subxana wa tacaala faraj u furay waman yataqi allaha yajcal lahu makhrija wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib ilmahooda waa umaan doonaan hadday ilaah ka cabsiga ay badiyaan laakiin dawladda marna waxaan leenahay war cadeyntiina afka wasiir hebela hadlay iyo wasiir hebela hadlay ma ahan ilaa ninkii la tuhunsanaayo adiga weye marka adiga haddaa hadashid aad tiraha waxaas been waa cidkaa yeelaysa male waxaa la rabaa inaa cadeyn keentid oo albayina oo ah ilmihii inaa waalidiintooda la hadashiisid waxay qaadan kartaan male in lala hadalsiiyo saan qabo hadday wax dhacana in la sheego maxaa yeelay islaamku wuxuu leeyahay saraaxada ayaa raaxa saraaxa raaxa wey mar kasta qofka inuu sariix u noqdo oo wax ay noqdaan haddii kale war kutintaanta badanayso munaafiqiinta iyo murjafiinta dadka ka faa'iideysanayo wadankii ayaa qalqal gali kara nas'al salaamatu wal caafiya